السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا لدي أصحابتي يا أحبابتي ذا خالقة دمانتين وإن السلام يا سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته أصبحنا وأصبح الملك لله وحده إلهي بواقع إنو بريسيي سوى عن أو نكسنا إنو بريسيي ملكي حمد دمانتين ربي أيا أسكال سبحانه وتعالى walaalkayga khaaliga ah waxaan jeclaysay inaan ku xasuusiyo xadiid maskaxdayda iminka ku soo dhacay xabiibkeena sallallahu alayhi wasallam wuxuu leeyahay man asbaha minkum aaminan fi sirbihi mucaafa fi jasadihi وعنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا وحذافيرها ninki idin kamida oo waaga uu u baryo asoo ammaan u qaba naftiisa oo aanan ka cabsi qabin in wax la yeeleeyo dhibaatooyin ayna ku furnayn iyo shidooyin markaas soo hujuumayo naftiisa qatar gelinaya mucaafan fi jasadihi jirkiisana uu caafimaad u qabo indhihiisa iyo dhagahiisa iyo qalbigiisa iyo arwaxiisa ay isku taalo oo aanan markaa ahayn nin sariir saaran oo bukan aan ahayn nin jirkiisu kala go'an yahay mashaakilaadii dhaawacyo ku oolin wa cindahu qawta yawmi maalinkaa wuxuu cuni lahaana meel ku og oo rabbi subxaanahu wa tacaala u yasiray adduunyada oo dhan baa loo soo kulmiyey buu leeyahay salawaatullaahi wasalaamu calayhi iyo wax allaale wixii ku jirayba walaalkayow haddii waaga uu ku baryo saddexdaa arrimood adigoo ku sugan waxaan jeclahay inaan naftayda iyo naftaada xasuusiyo wixii intaa kasii ziyaado ah waa ziyaado aanan u baahnayn mashaakilaad fara badan in loo maro diinta ilaahay looga fogaado iimaankaagii loo layaco ummadda wax loo dhibaateeyo allah hadduu subxaanahu wa tacaala waaga kuu barisiiyey adigoo ku sifooway saddexdan calaamadood oo xadiidku sheegayo walaalkayow qul alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiina dheh ilaahay subxaanahu wa tacaala ku shukri walaalkayow ilaahay subxaanahu wa tacaala ku mahadi walaalkayow haddii xadiidkani ama kiliibkani uu ku soo gaaray adigoo dhagahaagu ay bad qabaan oo aad maqli karta kiliibkayga indhahaagu ay bad qabaan oo aad arki karta kiliibkayga qalbigaagu uu bad qabo aad fahmi karaysa qowlka aan ku hadlayo walaalkayow allaan kugu dhaarsheeyo asxaabtaada kale iyo walaaladaada kale xasuusi nicamka allah subxaanahu wa tacaala uu siiyey walaaladaa xasuusi saan kuu soo xasuusiyey nicamka allah subxaanahu wa tacaala uu siiyey si ajirkay aniga adiga aan isaga mid u noqono walaalkayo waxaad ogaataa silcada ama badeecada markii la qasaaro gadaayo ama lafaheeda la gadaayo ama faa'iido badan laga raadiyo isku juhdi looma maro isku dadaal looma maro wax allaale wixii ka baxsan saddexdan sifood haddii ay tahay adduunyo aad raadinayso rabbi waa ku siinaya waana kuu sahlaya laakiin yayna kula dhaafin xadadkii rabbi kuugu talagalay subxaanahu wa tacaala imaa inaad diintaada ku layacdo salaadahaaga ku dhaafto imaa inaad dikriga ilaahay ku layacdo imaa inaad walaalada kale asxaabtaada ku jaa'ifayso adigoo raadinaya ziyaadada intaa ka baxsan walaalkayow allah insha allahu tacaala ka codsanaya ani adiga inuu naga dhigo dad waagu si nabada ugu baryo jirkooda oo caafimaad qaba allah subxaanahu wa tacaala irsaaqadooda uu meel u saaray maalinka naftoodana aamin u qaba allah subxaanahu wa tacaala ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaan ka rajaynayaa walaalkayow haddaan ku xasuusiyey nicamka allah ee saaka waaga uu kugu baryey walaaladaa kale ha kala bakhaylin inaad xasuusiso inshaa arraxmaan uxibukum fillaah alla dartii ayaan kuu jecelahay alla dartii ayaan kuu xasuusinayaa inshaa arraxmaan waxaan kaa rajaynayaa saan kuu xasuusiyey inaad walaalada kale u xasuusiso xadiidka aan kugu celiyo man asbaxa minkum aaminan fii sirbihi mucaafaa fii jasadihi aw fii badanihi وعنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا وحذافيرها ninki idin kamid waagu u baryo asoo naftiisa aamin u qaba jirkiisa u badbaado qaba raashinka iyo wuxuu maalinka ku noolaan lahaa meel u saaran tahay adduunyada ayaa dhan ayaa loo soo kulmiyey wiilay salawaatullaahi wasalaamu calayhi iyo wax allaale wixii ku dhex jirayba walaalkayow nicam ilaahay subxaanahu wa tacaala ku siiyey weeye qul alxamdu lillahi aladii binicmatihi tatimu asaalixaat wanacuudu billahi min xaali ahli nnaar allah subxaanahu wa tacaala ayaa mahad iska leh nicmooyinkiisa ku taamlaya dadka saalixiinta ah waxaana rabbi ka magangelaynaa min xaali ahli nnaar dadka ahlu naarka axwaashoodan allah subxaanahu wa tacaala ka magangelaynaa walaalkayow insha allahu tacaala انشر هذا كليب كان إن شاء الله تعالى أصحاب هذا الأولاد إن شاء الرحمن إلهي وحن كرجينا إنه كويله في ميزان حسناتك إن شاء الله تعالى
aad iyo aad ayaan idin jeclahay walaaladay wiilal iyo gabdho asxaabtayda wiilal iyo gabdho aad baan idin jeclahay allah yaxfadakum ويحبكم ولقاء أخرى إن شاء الله تعالى دمتم في حفظ الرحمن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته